Hey, I'm Steve Harvey, stand-up comedian, entertainer, television host, family man. There's no one way to heaven, no one way to paradise. It's like television. Now it's over 800 channels of cable, and they're all pretty حزتها الأعياد وش باقي غير الأعياد في غمرة بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها الأعياد وش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكي نجيب channel كان غداوانا سان والليل نايت بوي والله channel كان تاكو عصوب تاي اي تاي مركي كوغوري تا اصوب بوقت دي سبسكرايب كنوسا مقالك لايك سار اصحاب تاذرنا لوذاك انت مقال اياني وذا مقال ادي احن اياني وذا لكن انت مقالك وقدو قدن محان روا انا ارينير او نولوشي تكسو كوردي اني شيغو ارين تاسو سفر اسوق شيء كينيا حاليا هاي باي باي اصحابتي دي كينيا igaxariir دعني ودن كينيا ayaan ku soo asaasmay moogtay laakiin asxaabta Kenya iga xiran maxaan ilaahay ma salaam waan baxayaa halkeen u soo daade aniga maxaan u soo daa Ingiriiska ayaan u soo daa de hadda waa isweydiin kartiin de inankan meelaan mu xabado mu meelahan ka helay soo bixisay maya okay aniga akhris ayaan soo socdaa Ingiriiska waa lagu soo dhaweynaa mal asxaab aad u far badan ay halka iga xiran waan soo socdaa maalinkan soo baxayna de waan soo fariisana waan soo sheegay okay maanta muuqaalkeena muxuu ku saabsan yahay arrin aad iga yaabisay iga naxisay diin cusub ayaa soo baxday diintaas cusub oo la dhaho ibraahimiya naclatullah alayk wax aan weligay maqlin waa de muuqaalkan aan gudagalo muuqaalka waxa iska leh ogansho iska leh muuqaalka ogansho waa channel aad u wanaagsan wax aad garanayn awliga maqlin ka ogaan karto fadlan yaasaguna booqta okay hadana muuqaalkii oo diinta cusub diinta Benta oo cusub aan u gudagalo عليكم diinta cusub ee ibraahimiyada haddaad nala socotay mar ayaan si weyn uga hadalnay muuqaal hore isku darka diimaha iyo u bixinta xiriirka wadamo carbeed iyo Israa'iil dhexmaray magaca al-ittifaaq al-ibraahimi heshiiska ibraahimiyada It will be known as the Abraham Accord. haddaba arrinkaas wuxuu ahaa mid hordhaca laakiin maanta xaggee wax marayaan wadamada qaar ayaa si rasmi ah u bilaabay buunbuuninta diintan cusub kadib markay qibla u dhiseen diin aanan aqoonin waxa la yiraahdo islaamka saafida islaamkii lagu soo dejiyay nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inna ad-diina 'inda Allahi al-islaam wala xaabi waxaan sheegaa ciyaalkiini waxay daawanayaan bal fiiriyo waxay daawanayaan markay waxyaalo daawanayaan television-ka aado mise computer-ka aado mise laptop-ka aado mise telephone aado bal la socda waxay daawanayaan maxaa yeelay ciyaalka waa halis in waxyaalaha oo kale laga dhaadhiciyo de bal muuqaalkan waan sii daynaa soo dhaxgalayo si ay u fahantaan astaanta iyo ma aragtay diintan ay wadato si ama aragtay anagoo dhan iskaaga fiirno mise gees iskaaga qabno de waxaan socdo Steve Harvey stand-up comedy Americana نصير ياسين أما الناس ديلي sidoo kale labada nin waxay ka mid yihiin arkaanta faafinta diintan cusub waxaana lagu bixinayaa طبعا ملايين لعقة فالآن إذن لدينا حكومات تدعم رسميا هذا المشروع لا تخفيه كما ترون كما أعلنت مؤخرا التطبيع العلني مع إسرائيل بعد ما كان مشروع سري فالآن التعاون المخابراتي مع الموساد صار علنيا فماذا نستبعد بعد ذلك؟ أين المشكلة بعد كل هذا لو غيروا دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ labadaba waxay ku nool yihiin waqtigan dawladda Imaaraadka Carabta arrinku halka uu gaaray Steve Harvey nin majaajilaysta ayaana baraya maanta oo leh hadaad u maleynaysaan in jannada islaamnimo kaliya lagu galo waxaad ogaataan inuu arrinkan yahay qalad waad qaldantihiin It's like television. Now it's over 800 channels of cable, and they're all pretty entertaining. wuxuu leeyahay Steve Harvey jannadu waa sidii television oo kale 800 channel ayaa ku hor yaalo mid kaad rabtaa daawan kartaa xorriyadda adiga leh jannaduna waa sidaas oo kale uma baahnid inaad islaam tahay si aad u gasho jannada ee waxaad rabtid samee diintaad rabtid aamin arrinkaana waxa ay dhigayso diinta ibraahimiyada ma jirto hal wado oo jannada lagu galaayo asagoo ula jeeda islaamka majaajilayste Steve Harvey waxa ka sii daran yarkan ku faanayo inuu Israa'iil yahay naas daily magaciisana uu yahay Nusayr Yaasiin
waanu imaan doona arrinkiisa wuxuu isku aadinayaa hadalkiisa iyo qof muslim ah oo sujuudaya taasoo ah haddaad u malaynaysaan in jannada halkan qaab ee islaamnimada lagu galo waxaad ogaataan in uuna arrinkan sax ahayn. People who are religious think their religion is right. There is only one way to God. laakiin aniga maxaa la yaabaa dadka meesha joogade wallahi qofkaas oo kala du wadankii joogi lahaa uma maleynayay inuu casir u gaari lahaa maanta laakiin xilay lagu mahadiyada uu naga fog yahay de muuqaalka aan ku socono laakiin waxyaalahaas oo kale ciyaalkiina ka ilaaliya horta aan ma dhihi karin qof weyn oo maartay mas'uul ah inuu waxyaalahaas oo kale raaci karo laakiin ciyaalka ayaa daran de ciyaalka aan la socono wuxuu leeyahay arrinkan islaamnimada ah sujuudaas uu qofkaas sujuudaya ma ahan wadada kaliya ee jannada loo maro wuxuu soo muujinayaa hinduus siikh wathaniyiin kala duwan iyo sidoo kale muslimiin taasoo ah dhammaantiin isku mid ayaa tihiin islaamku hadduu xaq yahay hinduuska iyo caabudidda lo'dana waa xaq islaamku hadduu baatil yahay hinduuska iyo diimahan kalena waa baatil ninkan lagu magacaabay Steve Harvey nolosha waxa uu ka yaqaano waa majaajiladaas buugaagtaas uu alifay ee ah libaax baan ahayd buugaag ganacsi oo wax cilmi aan ku dhisnayn laakiin maanta jasiiradii carabta ee islaamka saldhigga u ahayd hadda imaaday ayuuna barayaa qaabka jannada lagu galo asagoona leh iska ilooba wax la yiraahdo diin islaam ayaa sax ah diimaha oo dhan waa sax si aad janno u gasho uma baahnid inaad islaam noqoto taasoo ah looma baahno weysada xilliga qabowga aad weysaysanayso soonka subaxdii aad salaada fajarka u kalahayso adoo qarqarayo adigoo isla janno gal Steve Harvey wuxuu ku leeyahay arrinkan uma baahnid si aad janno u gasho waxaad rabtidna iska samee jannadana waad geliye a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون waxaa macquula in maalin aad internetka ku aragtay yarkan leh shirkadda warbaahineed ee lagu magacaabo Nas Daily. It's 6 a.m., but I have finally arrived to my home in Israel. asalkiisa waa falastiini laakiin wuxuu sheegtaa inuu yahay israa'iili baasaboorka israa'iil ayuuna wataa arrinkan oo ayna samaynin xitaa dadka lagu magacaabo carab israa'iil ama carab 48 falastiiniyiinta ama carabta ku nool dhulkii ay yuhuuddu qabsatay 1948 bilowgiisii hore wuxuu ahaa blogger caadi ah wuxuu ka tagay shaqo gudaha Mareykanka oo lacag badan ku qaadan jiray asagoo doortay in uu soo gudiyo muuqaalo yaryar daafaha caalamka wuxuu xaqiijiyay la cajabid dad badan runtii markii laga soo tago wax uu aaminsan yahay iyo wax uu faafinayo isluubka iyo qaabka uu adeegsanayo waa mid cajiiba soo jiidashana leh laakiin hal mar ayuu isu bedelay qof ahaa nin dhalinyaro ah caadi ah waxyaabo iska ijtimaaci soo gudbiyo qof faafinayo afkaar jahannami ah sida ku dhiirigelinta carabta aqbalida Israa'iil iyo fikir ku dhisan tacadud al-adyaan ma jirto diin sax ah islaamka iyo hinduuska wax farqi uma dhaxeeyo intaas kuma una ekaanin wuxuu furtay akaademiyad dhalinyarada YouTube-leyda ah tababar u fidinayso طبعا wuxuu gacan ka helayaa dawlad ka mid ah dawladaha khaliijka ee buunbuuninayo diintan iyo afkaartan islaamka lidka ku ah waxay sameyn jireen sida in ay la soo xiriiraan dhalinyarada YouTube-ka wax ku soo gudbiso kadibna loo soo bandhigo in kanaaladooda loo maamulayo sida in jadwal loo sameynayo muuqaalada loo habaynayo waxyaabo badan laga saacidayo dhalinyaro badan ayaa dabinkan ku dhacay laakiin dib ka ogaaday arrinku in uuna ahayn mid caadi ah ee uu yahay in loo adeegsanayo faafinta aqbalida Israa'iil iyo waliba ka tanaasulida islaamka iyo waliba ka tanaasulida islaamka dhabta ah noocay ahaataba tanaasulidan taasi way dhacda YouTubera tahay oo yar maxaa rabtaa inaad kor u kacdo de waa lagu soo waca maxaa lagu dhaha channelkaadii aan sidan ku sameynaynaa sidan aan ku yeelaynaa bal nagu soo bir maxaa uma la email noocaas oo kale inaan arkay ayaan hore waan arkaa uma le laakiin maxaan dhahay aniga waan isku filnaay saasaan uma le aan jeclahay inaan dhahay so waxyaalahaas oo kale de iska ilaaliya
sida uu leeyahay yarkan maxaan uga tagay ama maxaan uga baxay akaademiyadda naas daily asagoo leh waxaana loo dusinaya afkaar ah inaan aqbalna Israa'iil. أعرف أنه أنا انسحبت مؤخرا من مشروع ناس ديلي، برنامج تدريبي طويل لمدة 6 أشهر ل80 صانع محتوى من الوطن العربي. أولا المشروع عليه شبهات كثيرة، حتى مؤخرا منظمات مختصة تكلمت عن خطر هذا المشروع بالنسبة للقضية الفلسطينية وبالنسبة لتغيير وعي الشعوب. sidoo kale ninkan waxaa lagu magacaabaa Fadi Yunus, youtuber asal Falastiiniya kuna nool waqtigan Canada. wuxuu ka mid ahaa dadka ka hadlay dabinka naas daily ee ah faafinta afkaarta sahyuuniga iyo wax walba oo islaamka micnihiisa dhabta ka saarayo. زي ما كلكم تعرفوا أنا مؤخرا ذكرت أني أنا انضميت لأكاديمية ناس للتدريب وتعليم صناعة المحتوى، وكمان ذكرت بأنه راح ندرب 80 صانع محتوى من الوطن العربي، وهذول راح يكونوا جزء من مبادرة أو برنامج اسمه The Next Nas Daily. dadka sidaan ah dawlad carbeed oo islaam sheeganayso ayaa fangaraynayso. wakaas muuqaalka halkaas ayaan ku joojinaynaa anaga, laakiin muuqaalka maxaa u malay inuu 10 daqiiqo ah, aniga maxaan ka soo qaatay ilaa 7 daqiiqo. laakiin waa sidaas diintaas cusub ayaa soo baxday, ciyaalkeenu iyo annagoo dhan aan iska ilaalina. anaga islaam ayaan nahay, diinteenu waa islaam, nabigeena waa nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. ciyaalkeena sidaas ha ogaadaano dadka wadanka joogo uma maleynayay inay waxyaalahaas oo kale ku degdegeen, laakiin ana dadka aan baqaa maxaa waa qurbaha, ciyaal qurbo iyo dad qurbo waxyaalahaas oo kale la iska ilaaliyo. okay, ciyaalkiina hal isku jiraan iniga xoriyad mitiino moogtahay, saasaan dhihi karaa. dadka qurbaha jooga xor maahan moogtahay. waxaan umalayaa aniga muuqaalka halkaas ayaan kusoo koobayaa. fadlan muuqaalkan share dheh si uu gaaro dad badan. ilaa muuqaalka xiga aniga maxaan iga tagayaa intaas iyo nabadgelyo. peace.